waxaan maxad u celinayaa hay-adaha iyo guddiyada doorashooyinka shaqada dhibka badan ee ay soo qabteen iyo cid allaala ama cid kastoo gacan ku siisay qabsoomidda hawsha doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan bogaadinayaa tallaabooyinka la soo qaaday waxaana ku baaqayaa in waxa dhiman degdeg loo dhammaystiro. waxaan rajaynayaa oo shacabka Soomaaliyeedna la wadaagayaa in horey loo soconayo lagana gudbaayo ramadaanka fadligiisii khilaafaadka iyo isjiidjiidka jira. intaa kadib waxaa ilaahay mahadiisa ah in safar dheer kadib aan maanta soo qaadanay shahaadadii iyo aqoonsigii xildhibaannimo. golaha shacabku waa asaaska dawladnimo waana muhiim si ummadda Soomaaliyeed looga samata bixiyo xilligan adag in la xaqiijiyo hufnaanta shaqada gaar ahaan golaha shacabka. sidaas darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka u cadeynayaa inaan u taaganahay xilka guddoomiyaha golaha shacabka. waxaan ugu baaqay xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed inay qaataan shahaadooyinka si ay qayb ugu noqdaan dawlad dhiska iyo samata bixinta dalka. wabillahi tawfiiq. ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye. waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo weliba tifiyada Soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay, adiguna ma ku qanciyay.